bastoolad yaa la wataa ninka wala la gudbay cabaal la soo sheekay wala soo celshay meel luuqa oo ciidan ay ka dhaweyn ala keensaday ka bacdi asaas lagu diray ku sibiray aan keensa hawas ku sibiray eedeysane Cabduqaadir Cali Cabdullaahi oo lagu naaneeso ha ka yaabin waxa uu ahaa tagsiila jecel askarinimada baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga ayuu soo dhigi jiray sawirro iyo muuqaalo isagoo wata bastoolad qori iyo tuutaha ciidanka waliba sharci la'aan maadaama shacab uu ahaa ujeedkuna waa igu sawir oo fiyuus kaliya ayuu ka rabay balse jaliinkii uu matalayay dadka ku xiran ayaa ka tusay inuu dilo saaxiibkiis marxuum Abuukar Aadan Rooble oo ka mid ahaa ciidanka aan muuqan ee Nisa adiga maxaa qabataa farsamada shaqadaad maxay tahay aniga rikaabna ku shaqeeyaa kaamiraan waa xiraa kaamirooyinka CCTV-da macnaha xaafadaha ku xiraa adiga ciidan ma tahay may marka dareeska ciidanka maxaa u gashanay maxaa kartaa darees inaad dhalinyarnimo la ii geyso oo muwaadinimo aan la ii geyso inaa qaranka jeclaa ciidanka jecesha in badan qortaatay ii soo bixi waay marka sidii aad macnaha jecel ahaan u qaatay baskooladana hubka macnaha sawir kuwa mid oo meesha jooga macnaha oo isku sawiraya macnaha dad isla soconay oo asxaabe ah ayaga isku sawiraan sidii geeska hay sawira aniga ma wax ani oo qaas aan u qaatay ma meesha dad jooga macnaha oo isku sawiray aan keensa hawas ku sawiray dad badan shacab iyo ciidan isku jira meesha qof isku sawir ma joogin markaas dadka dhan waa isku wada sawiraan waana sababta maanta halkan ay u taagan yihiin isaga iyo dabla xoogga Cabdalla Abuukar Ibraahim Abaaka oo ah askarigii uu ka qaatay bastooladda nafta lagu dhaafiyay marxuumka falkan ayaana ka dhacay degmada Yaqshid 23 bishii 9aad 2024 ninkan bastooladda maxaa ugu dhigtay soo lagu geystay ninkaas ciidan ba maahay bactuuta igu jiray iyo waxay ahaayeen bastooladda marka bactuuta soo koreysay bastooladda way ka hooseysay bactuuta ko soo dhiibay bastooladda soo qabanay ninka marka sidaas awgeed xabad oo fagtay soo qabo kaliya leedahay anoo xaafadda jooga xataa guriga ilbaabkiisa heeday marka saddexda qofood mid kamid ah baawurka waa ka soo degtay daroolkii baawurka waa ka soo degtay daroolka shirka hore baawurka wiil la saarnaa oo hadda marxuumka ahaa wuxuu u soo wareegtay isagoo meeshiisa fadhiyo shirkii baawurka meesha laga wareystay oo soo fadhiistay kan kalena mar hore uu ka degtay baawurka oo wuxuu ku aadanaa baawurka qaybta kale ku aadan daroolka oo ag istaagay waxaanu tilmaamay meesha aniga aan fadhino wada ka baxdo oo inta aado oo tilmaam marna faraa ka hadlay marna tilmaam afka uu ka hadlay laakiin waxay ku hadlayeen ma fahmin mana maqlin aniga marka waxa cabaar adiga wiilka waxa isla waramay gadaal saaran iyo kan baawurka mar hore ka degtay isla waramayeen kan kalena waa mashquulsanaaba hortiisa hor allaheed oo marxuumka marka wax yar kadib waxa maqlnay raacsiis xabad marka xabad raacsiiska aan maqlnay baawurka hadaa fiirnay iyo bam asla yirtay marka iyo ninkan oo marxuumka ah oo gacanta inuu inta ku qabsaday oo dhahay way ugu taala saddex mar uu dhahay markii dambana hadalka ma soo fuuqinba oo madaxiisu wuxuu ku kor dhacay baawurka dirshadiisa albaabka oo madaxa uu sitaysan xilliga dilka uu dhacay labada eedeysane iyo marxuumka ayaa wada saarnaa gaari nuuciisu yahay Corolla wadana uu ka yahay eedeysanaha ka yaabin halka marxuumkana uu saarnaa qaybta hore marka horta bilawga shaqa ka soo baxay oo kaamira xiritaan ah aan ka soo baxay asaa isoo wacay ayaanta ku arkay intee joogtaa oo dhaay waxaan dhaynay oo shaqa ku jira shaqada markaas soo dhameeyo ku imaanaa koobtii shaqa uu tagay oo suuq baad markaas oo joogay meesha marka uu tagay asii tali unugiisa ani baabuura wataa marka aan leeyahay watay tali unugiisa baabuurkayga qaatay ana markii dhaay xaafadda raba inaan soo qabeystay ma xale tali unugiya mootadan qaado ku soo qabeystay dhaay kadib aan igu soo laabo أنا سيس عضا متكان صاحب جالسين يسوي أو داي معنا درا جوري وياله أو يديبتي وهذا إنه درك سان كاروا أنت جوكتا سوق بعد الجوجا أنت جوكتا حرده كسوب بحويا حرده كسوي باروح سكومان باروح أنا كان كسوق هذه حافظ أنا حافظ إيمانه أو توفيقه مركا أنا حافظ هذا سنة حول تمان جرنا ودا سيدي مركا حافظ هذا وسوق بيستسلات أشياء كسوب بحية ninkaana dharku soo qaaday dharkii ninkaan markay siiyay ninkaana waxay dhahay markii xaafadeedigii adaa mooto watee ninkaan markuu si dhaay waxaan dhahay waayahan dhaay sidii anoo ninkaan oo mootada shaal ii go'day shidaal ku shubanay anoo markii macnaa oo sii socdo marxuumkii soo wacay Bakar wuxuu leeyahay intee joogtaa asina shaqa ugu tagay marka bilawga baabuurkayga tali unigiisa watay ani baabuurkayga ma ku ogeyn ba asiga bataatanba marka asiga tali unigiisa soo raacay waxaan dhahay baabuurkaada la jiraahe intee joogtaa
waxaan dhahnay waa mid saaxiibna xaafadis u wada waa ku imaanaa may waa iswada raaceenay iyo imaaw sidii aanu marka aniga xabs wax dhahnay ninkaas ay soo wuxuusaan oo dhooyay amar le markaan ku geeyay kadib xaafadis marka haween walba ana xaafadis geenay bakarka marxuumka dhiman ilaa naxariistay xaafadis mar walba wadaay macnaa marka aan shaqada wasan way soo wici jiray baabuurka ku qaadi jiray xaafadis geey jiray Allahu musta'an ninkaan xaafadis tagnay aniga baka iyo ninkaan soo raacna mootada wadana moogta tali unugiisa xaafadiisa imaanay meesha baabuurka iyo mootada lagu kala wareejinayo waa ani mootada oo tali unuga siinay anna macnaa ka qaadanayo baabuurka aan qaadanayo marka ani ninkaan gadaal fadhiisana alaabta gadaal soo saartay markuu gadaal soo saartay baabuurka marka bakarka marxuumka dhimana dhinac baasajirka jiray mobile oo ku hadlaya macnaa message wax qoray marka ninkaan ani gadaal marka fadhiisana bakara wada isdheena moogta bakar wawadu waa ninkaan soo wareegsan gadaal ka soo degtay baabuurka steerigo qabtay waa soo baxnay marka soo baxnay waxa imaan ninkaan xaafadiisa imaanay ninkaan xaafadiisa marka imaanay oo degtay ninkaan bakar dhinac baasajirka oo fadhiye waxa soo talaabsaday marshadii oo soo talaabsaday dhinac darawalka oo soo talaabsaday ninkaan markii dhay alaabta ii soo dhiib alaabta markaas u dhiibay alaabta xita waa dharkii bacdi iyo biskooladii aan macnaa markaas inaa biskooladii meeshii muku ogeyn baan xatay macnaa ogaansho ahaan caadiyan dhiibitaanka marka dhiibaayo ama xabad maqla marka wax saddex xabada dhacday see waay isdhay ana cabaar aamusnaay markaas ninkan saaxiibkay bakara wuxuu dhahay waa igu taalaas oo dhahay daaqad madax kala baxay waa soo degtay markaa soo degtay meesha steerig soo dejiyay gadaalaan soo saaray baabuurka anaga gacanteedu ku waday isbitaalka Kalgaala geeyay inta wadada socnaa marka ninkaan macnaa xabad riday wadada oo waa ku furay oo dhahay sidii marka isbitaalkii aan Kalgaalaan geeyay Kalgaala waa inta markii loo macnaa aan markaas intaan macnaa isbitaal geenin amid oo caanan lahayo oo askarta asin kamid ah oo markii meesha aan ku marnay waxaan dhahay caano bakara dhaawacay soo bax ilaa macnaa aan kaliyeena aan moogto wax walba dhici kare sidii macnaa asin u waday isbitaalkaas la tagnay intuu macnaa baabuurka aan socnay xaafadiisan ku marnay isbitaalkaas la tagnay saddexdiina anoo ilaa caanaha iyo marxuumka afar aan ahayn sidaan isbitaal ku tagnay waa dijinay qolka emergency la geliyay waxa la marxuum waa dhimay Allah marka sidii wax ku dhaceen marka kasa xabad ugu dhifataan ugu dhahay jaabtaad maxay tahay marka soo koob may gasma u dhifan ninkaas hadii aan dil intaas asal socon dilkiis intaas kaaran geena xaafis geena aan as ahaan marka dilkiis wax ii faa'iidiisa kordhinaysa malaha Soomaa saaxiibo ahayn oo ahaa dilka kadib eedeysanaha labaad abaaka ayaa marxuumka bastoolad uu watay ka riday rasaas si ay u marin habaabiyaan dilka uguna ekeysiyaan in marxuumka isagu isdilay waxaana kaamirada CCTV-da ay qabatay iyagoo marxuumka sii gelinaya mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho kadibna isku dayay inay baxsadaan bastooladan oo ammaan leh dubana leh meel laga rido leh la leeyahay xabada ka fukatay marka waxaad dareemaysaa inay mu'aamalo tahay ninka dhahay xabada iga fukatane ma aha nin bastoolad ay ku cusbeed maaha waxaan soo bandhigaynay sanad dhan oo bastoolad isticmaalay macnaha wax macquul ma marka aqliga caadiga ka baxsan tahay goobtan waa goobta lagu dilay waxa ka dareemaysaa xataa goobtan marka saas u sii baxda meeshaas biyo degeen way waxa loogu talagalay in axtaa ciidanka amniga ay soo gaarin lagu damiyo marka eedaysana intaan ka gudbin intaan kadib saaxiibkiisa farsamada la wareegayo oo wuxuu sameynaa ninka waa askari qaran waxyaabo badan oo ciidanka uu ninkan uu activesan yahay jirto wuxuu sameynaa baskooladii ninkan uu lahaa marxuumka oo inta qabto xabada karida xabada tirabeel ku rida asoo dhahayo jidkan ku furanin macnaha wax ka jirana malahan waxa waay ninkana isdilay oo uu sheekay ninka taray kooxa wada baadiyaha ku maqan ayagoo ordaayo ninkaas istaajiyo ninkaas markuu istaajiyo wuxuu ugu sheekayayaan waxa isdilay ninkii isdilay dhakhtar aan wadnaay soo baxn raac waxa arkaysaa ayagoo isjiidayaan oo uu dhahayo ii sheeg ninka waardiyaha iyo ninka kale oo dharcado meesha jooga iyo ku dhagaayaan dhahay ma bixi kartiin jooga ilaa ciidanka amniga ka imaanayaan ee baxsad ahayeen oo mooto xigta ay kireysteen oo mooto la soo dejay gaariga saan u yaala waxa lagu saarnay ninkan dhar cadaa waa ilaalada shacabka waay wiilka dhiman doono waay marxuum Abuukar waay ninkan waa abaaka waay ninkan ha ka yaabin waay bastoolada halkaas taala bacdaasna waxa ku jiro dharkii hadda aan soo bandhigina ku jiro saana loo fadhiyaa kadib waxa dhacayso in goobta la yimaado oo goobtaas ah goobta marka waxa ka dhacayo ninkan abaaka waa soo daga oo ilaalada qaran ka tirsan wuxuu tagaa meeshan isagoo oo ninkan warsanayo bacdaas
iyo bastooladu asiga lahay marka waxa dhacayso ninka inuu meesha ku soo wareego marka mu'aamarada meeshan waxa waaye saana loo fadhiyo bastoolada ninka waa agtaale markaas wuxuu ugu dhufo waay mu'aamarada marka meeshan waxa ka dhacayso waxa waaye ninkan waa degi ninkaana waxa alla marka shaqada qabso aan waa ka dag macnaha si aniga isoo adankii oo xataa fariin isoo gaar kadib wuxuu sameeynaa ninkan duud intoo goob gareysto sida markaatiga sheegayo ayuu duudka tugu aadiyo waliba meel halista wadnaha ah ayuu caadi u dhax bixinaa marka meeshaan ku dhacana way la ordayaan oo isheeg ilaa isbitaalka gudihiisa ay galaan ayaa meesha ka dhacay marka qaabkii u yaalaan qaabkan waaye marka ninkan uu dili kariyay hadduu wax dilaayo bastooladu ag taallay muxuu ninkan u dilaa ninkan waxaa waaye ninkan waxay kusoo heshiiyeen oo baar wax looga doono ninkan al aslu waxaa balansanaaya ninkan iyo ninkan oo eedeysan cabdiqafaar iyo marxuum abuukar marka si loo dilo marxuum abuukar bastoolad in la helo waay bastoolad ayaa laga doonaya u fudud waay waxaa u fudud abaaka waay cabdalla abaaka laga soo qaada baar wax bastooladii la wataa ninkan waa la gudbay cabaala la soo sheekeeyey waa la soo celshay meel luuqa oo ciidan ay ka dhaweynaa la keensaday kabacdi asaas lagu dilay bastoolada dilka lagu geystay ayaa eedeysanaha labaad abaaka waxa uu kala soo dhuuntay taliyihiisa oo darawal uu ahaa kadib markii uu ku hilmaamay gaariga waana kan sargaalkii baskoolada lagala soo dhuuntay iyo mar kale waxaa lala socday marka guriga geena yar taliya hurinkiisa oo taliya hurinta koowaad oo la yiraahdo kaaka wixii ka dambeeyay markuu soo wacay uu dhahay taliya bastoolada gaariga ugu tagtay makuu soo laabtaa makuu keenaa anigana waxaa ku dhahay maadaama gaariga shidaal badan uusan iigu jirin oo 20 litir ka yar ay ku jirto meeshana kulidii jaalisiyaad ay tahay waxaa dhahay subax markaa soo doonaysid 12 saac hore igu soo qaad waayahay uu dhahay meeshaas iskay war dambeysay kadib sida xogta ku helay Cabdulla wuu baxay wuxuu qaatay bistooladii iyo wuxuu qaatay gaariga furihiisa oo ilaa hadda iga maqan waxa iga maqan bistooladii way iga maqan tahay gaariga furihiisana way iga maqan yahay gaariga furihiisa beerka ku wataa baaraha kiiska ayaa maxkamadda la wadaagay natiijadii ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida cabdicasiis cismaan faarax cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysane cabduqaadir cali cabdulaahi ha ka yaabin ay ku xukunto dil toogasho ah halka eedeysanaha labaad dable xoogga cabdalla abuukar ibraahim abaaka uu codsaday in lagu xukumo xabsi daa'in gudoomiyaha si fiican indha baalka ku fiiriso saddex arrin ku soo baxayso in hunguri uu jiray oo in bastoolada saara naynta oo watay marxuumka in laga dishto shabaabka marka baaris lagu sameeyay sooma bixin laakiin suspectiga tuugnimada oo burcadnimada in bastoolad laga dishto way jirtaa marka dilkaas ma dhacay haa uu dhacay asiga qiraal ma leeyahay haa qiraal uu leeyahay inuu qiraal leeyahay maxaa cadeehayo 434 wuxuu ku dhisan yahay tiirar wuxuu leeyahay ma jirtaa iraado ama doonitaan haa way jirtaa iraadada maxaa kamid in bastoolad aan soo qabto oon goob gareysto oon saan kugu aadiyo mudug gudoomiye marka aqliga caadi loo eego gaariga wuxuu ka taagnay Cabdalla Abaak dhinacan uu ka taagnay marxuumkuna halkaa uu taagnay marka aan baskoolad aan dhiibayo ma halkaas ay mare waa maya saan u dhiib karaa maxaa keenay in ninkan saan loogu aadi macna waliba si direct shaqal qalooc ma si direct inuu ugu aadi lambar 2 maxaa keenay inuu la goob gareysto maxaa keenay waa iraada waxa waaye qof waa inuu kubkii goob gareysta waa inuu ku aadiya waa inuu rishanta taata intaas ma dhacdo waa dhacdo 434 markii intuu ku tiirsan yahay oo saxda ah waa taasa waxaan wax ku kalifayo ها واجر بار waxa la soo maray halkaas la soo maray dhinacaas la soo dhacay baskooladii la keenay gaariga la soo saaray waa la soo maaweeliyay waa la isku aadiyay ninkii la dajiyay ninkan kale wax ugu noqon markii la dajiyay kadib waxa dhacday in baskoolada goob gareysto in lagu aadiyo waxa soo dhan marka waxay cadeynaysaa in tiirarkii dambiga 434 inay buuxsantay mudug gudoomiye isbitaalka marka la keenay ayuu cadaadis ku keenay isbitaalka ma keenleen taliye unuga intii istaajo baskool ku istaajo markay istaageen ayuu gaariga la koray ninkaas ma reebi karaan ninka kale ma dili karaan waa maya ninkii waxay ugu sheekeeyaan ninka asaas diliya sheeksaas isbitaalka marka la tagay xaalad isbedesho waxay damceen ninka inay iska mashquulshaan intuu ku mashquulsan saaxiibkiis inay baxsadaan laakiin ciidanka amniga ee isbitaalka ayaa ka diiday inay baxaan macnaha ay ka noo keenteen adig kale meel ku salimo waa salaaligeeda taliyii qaybta iyo taliyii degmada ka soo gaaray sidaas lagu qabtay inay baxsadaan maxaa keenay saaxiibkooda ahaa ayaga dilay maxaa keenay taas waxay cadeynaysaa in dilku waa dil kas ah rabeenna inay meesha uga tagaan ilaahaysa uu ku saliday ninkaas dharcada ah ee ilaalada shacabka ka tirsanaa ee waajibkiisa gutay asagoo xaafadiis u socdo marka waxaan codsanaynaa eedeysanaha koowaad
maadaama intaasoo walxaato ay jiraan muwaadin masaakiin ah oo marxuum allah u naxariistay Abuukar Aadan Roobla ah oo hooyo dhan ay fiirsanaysay ayuu dilay si kasoo u dilay waxaan codsanaynaa isagana in la dilo oo dil toogso ay ku xukunto maxkamadda maxaa yeelay nafaa ku maqan dabla xooga Cabdalla Abuukar Ibrahim Abaka waa ninka kasoo shaqeeyay in ninkan la dilo bastoolada lagu dilaayay in la keeno waay gacan siin waay nugu doomi marka gacan siin la dhaho way adag tahay ninkan dilo waxyaabihii sababay ninkii keenay inuu dilo wax ma dhaam gacan siinta marka iyadoo eeyayso waxaan ka codsanaynaa maxkamadda inay laba walxaato ay ku xukunto inay xataa xabsi daa'im ku xukunto maadaama nin masaakiina naftiisa ay ku maqan tahay oo sabab u ahaa asaga musabbib ayuu ahaa asagaa sabab u ahay lambar 2 xabsi daa'im markay ku xukuntana ciidamada laga saaro maxkamadda waa maasanta qareennada eedeysanayaasha ayaa muwakkiliintooda u codsaday in laga khafiifiyo ciqaabta laguna xukumo magta marxuumka eedda dilka ah sida uu fasiraada ka bixiyey aada dil inay tahay oo ninkaas xabad asaga ka dhacday uu ku dhintay ma diidano laakiin fasiraada la bixiyey ayuu diidan yahay oo ah in la leeyahay dilku waa kas dilka sida uu shariicada islaamka qabto qaanuunkana uu qabo waa qayb badan yahay kasuu naqdaa kama uu naqdaa ama shibhul amdi waxyaaba dadka ay kasdaaf yiraahdeenoo naqdaa marka arrimaha uu diidan yahay ama arinta uu dooda ka keenay ilaa haddana uu fadhiga markii maxkamadda loo jeediyay aad uu sheegay waa inuu wax kas ah uu dil noocaas oo kas aysan jirin calaamado badan asbaab fara badan oo arintaas muujinayso fara badan ha jirto waxaad moodaa dhammaan cadeymaha loo keenay inay lid ku yihiin eedeysanaha dhammaan inay asaga u yihiin maslaxada moodaa qof walba meeshaan soo istaagay wuxuu ka hadlaa si maslaxa u ah eedeysanaha intaa waxaa dheer mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh oo difaac u ah in intii la baarayay mobilkiisa oo ay hay'adaha amniga gacanta ku hayaan aysan keenin ama qoraalaha naqdaan ama shay kale ha naqday oo loo fasiran karo in wax colaad ah ama isnacayb ah inay kala dhaxayso eedeysanaha marxuumka lama keenin lamana heli karin haddii xataa ay keeni lahaayeen WhatsApp wax la isugu qoray ama Messenger la isugu qoray ay leeyihiin raggaan colaadaana ka dhaxaysay sababtaan in wax u dhaceen ma jirto macnaa marqaati sheegaayo rag saaxiibo ah ayoo wada socday kadib midkood xabad uga dhacday haddana isla iyagii qaaday jihadii isbitaalka loo aadayo u qaaday wixii ka dhacay hal xabad ahaayeen isla aan xataa daahinay degdeg ku qaaday marag oo waxa waaye maslaxa u ah eedeysanaha waxaan rajaynayaa marka in sida eedeysanaha uu sheegay taariikhda dhacdada xilliga ay dhacday inaysan ku soo kordhin baaraha ama xeeraalinta ha naqdee wax ka dheeri ah maxaa yeelay bistooladiisii xabadda ka dhacday ay waxtaa ma dhihin hadda bistooladaas inay tahay bistooladii uu dilka ka dhacay waxaa sheegay eedeysanayaasha maxaa yeelay marxuumka bistoolad kale watay lama dhihin tiisay xabadda ka dhacda lama dhihin waxaan rajaynayaa marka insha allahu in mataqaanaa qodobkaas 434 lagu wey doono sidoo kale jiritaanka dilkana maadaama aysan inkirsaneen in mataqaanaa maxkamadda ay ku xukunto magti marxuumka waxaan rajaynayaa marka in go'aankaas go'aan cadaaladeed uu noqon doono maxkamaddu waa maadsanta hal xabada dhacday hal xabad marxuumka ku dhacday marxuumkina waa qaadeen isbitaal ay geeyeen haddii ay dilkiisa u soo kaceen inay qaadaan isbitaal ay geeyeen sameey lahayn waa kala carar lahayn waxaasna waxaa cad falkaas in ku talagal uusan ahayn oo fal khada uu yahay qofka geystin oo qiraal ka yahay oo wixii mag ahan asaga lagu xukumo muwakkilkeena waxa suuq uusan ku lahayn oo yahay nin askari ah dawladdu u shaqeeyo bistooladaasna waxaasna waa qornaayeen qoraal rabay ahaayeen waxaan rabaa in xorriyadiisa la siiyo maadaama wax uusan dilin dilkaasna uu dhacay kam maxkamadda ma haysata maxkamadda maxaa ka codsanaya wallaahi maxkamadda waxa wixii xaq oo meesha yaal waa loo jeedaa ninkaasna saaxiibkaygu waa sidoo si kas muu dilin kama iga ahayd oo si bareer cad uma dilin maxkamadda waxa ka codsaa labada dhinac dhinacii oo ilaahay ii qorane waa mari doonaa un haddii dil noqotaaga haddii ay qaadanaya ciddan waa ayaga waa labada dhinac waa ii furan tahay
cos in ciddii diyo qaataan oo fasaxan xorriyaddeeda dib u helo hadday macquul tahay. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray. cabdiraxmaan gacan, warbaahinta qaranka, muqdisho.